waxa taa tulamida naga go'an by any means kastoo ay noogu qaadanayso kos kasta ama in kastoo ay nagu tagayso inaanu difaacno qarannimada iyo xuduudaha Soomaaliland dowladda Soomaaliland anoo ku hadlaya xukuumadda Soomaaliland waxaan u aragnaa hadalka ninka ka soo yeedhay hadal xadgudub ah hadal daandaansiya hadal xasarad abuur ah hadal badheedh in uu colaad horiye ah mowqifka dowladda Soomaaliland ay ka qaadatay oo arrinta arrintaasi waa ka xamse cabdi barre wuxuu ra'iisul wasaare ka yahay dalka aanu jaarkan ee Soomaaliya waxa magacaabay madaxweynaha dalkaasi ee Soomaaliya oo uu magacaabay ra'iisul wasaaraha inuu waddankaas ka noqdo 2022 waxa uu matalaad ku joogaa inuu saami qaybsiga siyaasadda ee Soomaalida dalka Soomaaliya wax loogu qaybiyo qabaylka degan gobol iyo mini states ka mid ah federaalka dowladda Soomaaliya oo ay ka mid tahay Jubbaland iyo Puntland waxa la yaab leh xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay waxay colaadin joogtaa ku haysaa labadii state ee uu matalaadda siyaasiga ahaa uu mataliyay xamse dood iyo diidmo midna kama dhiibto wuxuu raalli ku yahay wax kasta nooc kastoo loola dhaqmo kuwa uu u yahay matalaadda siyaasadeed waxaa daba nasiib darro ah iyada oo madaarkii muqdisho oo hubiyey lala dhacayo iyada oo afisyoone ama xerada xalale ajnabiga fadhiya ay noqotay territory gaar ah oo aan Soomaaliya xukumin oo xitaa wasiirada dowladda Soomaaliya markay xarunta xalane galiyaan la baaro nin hay'ad caalami ah oo kuwa maaliyadda ka shaqeeyay uu shaqeynayay baa wuxuu tagay meeshaasi xalane in kale oo ajnabi ay wada shaqeynayay Israa'iil magaalada Muqdisho toos u galeen way ka soo noqdeen xeradii bay ka soo noqdeen ninkii ajnabiga ninkii Soomaaliga wuxuu ku yiri Soomaaliya xayndaabkaas aan u dhaxeeyo sinka يعني waa sovereign area ka madax bannaan Soomaaliya siyaadadii iyo madax bannaanidii dalka Soomaaliya la yiraahdo ceeb iyo cambaar ku ah midnimada iyo siyaadada iyo dhowrsanaanta dhuleed ee Soomaalida uu xamse cabdi barre inuu laascaanood ka raadiyo oo doonayo wuxuu weli kalaayay inuu Muqdisho ka sameeyo oo Muqdisho qayb ka mid ah oo ajnabi degan yahay aanay Soomaaliya xukumin isaga iyo wasaaradiisaba la baarayo markay galayaan sidii dad ajnabi waxaan leenahay xamsow waxaad laascaanood u timaadaa waa inaad xaabo ka dhigto dadka reer laascaanood waa inaad xasarad abuurto colaad abuurto barashar siyaasi aad ka dhigato doonasho cusub oo dhiig Soomaaliyeed ku daatan inaad halka ka abuurto waxaanu leenahay doorashada aad ku baaqaysaan adii iyo madaxweynahaagu ee doorashada cod iyo qof ah ee dalka kan Soomaaliya inaad ka qabataan doonaysaan doorashooyinka cod iyo qof loogu dareero waxa khibrad weyn oo dadka reer Soomaaliland iyo dawladaha reer Soomaaliland doorasho sanduuq meel la dhigo oo dad cod u dareeraan ku yu galaan waa shayga ugu xasaasisan ee la qabto doorasho cod iyo qof markaad qabanayso waxay u baahan tahay 100% nabadgelyo sugan waxay u baahan tahay 100% isku ogolaansho la isla ogol yahay nooca doorasho la qabanayo sanduuq doorasho oo ay waraaqo ku jiraan dadkuna ku yu galayaan waa shayga ugu xasaasisan ee aan qaadi karin iska daa madfac lagu tuuro ee afar qof oo mudaharaadaya ay kala daadin karaan arinta noocaas ayaa doonaysaan iyada oo fil Soomaaliya madaafiicda ku dhacaysa inaad tirahdaan dadkii Soomaalida ku tirahdaan doorasho cod iyo qof qabanayna waa doonaysaan inaad kursi ku siyaadkiisataan waxaan leeyahay maanta xamse cabdi barre xamse ra'iisul wasaarihii talada dalka kaaga horreeyay Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha uu Maxamed Xuseen Roble loo oran jiray sida lagu magacaabay un baa loo magacaabay farmaajo magacaabay laakiin damiirkiisa iyo dadnimadiisu waxay siin waayeen inuu farmaajo Soomaaliya gud ku rido inuu ka aqbalo magacaabista lagu magacaabay kama dhigna shay kasta oo ummadan mahalaka u horseedayo waad ku khasban tahay inaad xamse u yeesho Maxamed Xuseen Roble wuxuu taariikhda ku galay inuu gacanta ka qabtay dalkii uu ku burburinayay farmaajo dalkii doorasho ka hirgeliyay uuna ku ammaanay yahay maanta dawladda aad adigu maanta ra'iisul wasaaraha u tahay waxa ku suntan oo taariikhda ku galay ninka la yiraahdo محمد حسين ربلي رئيس الوزراء كل مدة بوها ضمير كيسا سير مدحوينه مقعابة إنه جرد الكلام عينه كوكولات هذه قلنا ما أنت واحد كوكولات يرد الله سعانات علات كسهوري حابة إنت تخرج سعانات كذي قتان أو علات حر لك شداد رات كوكولات وعن كوكو سوق بجبيني يا حمسو هل كلك بعد كذي قتين دنيا ده صومالي هشيسة دنيا ده نل هشيسة أنت واحد مرة إنسان صومالي يسعون يسد دنيا ده نكرد عضي إنك كذي تختار ماشى حكومة الصوماليلاند
waxay u dhaaratay inay difaacdo qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo xuduudaheedaba waxay geed dheer iyo geed gaaban u fuulaysaa oo habeen iyo maalin ka shaqaynaysaa dadka reer laascaanood ee qabashada qaba ama ra'yigan ka duwan qabaa inaanu qancinno la heshiino isla fadhiisanno waayo waan isu rannahay dhaqan baan isku horannahay dhalashaan isku horannahay deegaan baan isku horannahay dad kala maarmayo oo kala tegaya weligayogni waxaan geed dheer iyo geed gaaban u fuulaynaa inaanu nabadgelyo kusoo dabaallo nabad helno somalilan gudaheeda in nabad laga dhaliyo iyo xukuumadda uu hogaaminaya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ay siday ku gaadhaysaba u fuulaysaa